dhulkaaga lagu hodnaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa dhulkaaga lagu hodnaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa. bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulan wacan oo wanaagsan meel kastoo aad nagala socotaan daafaha dunyada iyo wadanka gudihiisa somalilan. waa barnaamij aanu ku gorfayn doono xaalada guud ee wadanka, siyaasada dibadda, safaaradaha somalilan. barnaamijkan waraysigan waxaa toddobaadka noogu martay ambasador cabdi maxamed saleebaan oo mingiste ku magac dheer. mingiste waa safiirka somalilan ee u fadhiya wadanka china. waa nin aqoon-yahan oo laga soo bilaabo 1991 siyaasada somalilan la socday. waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa sida waqtigiisa qaaliga oo noogu horey soo dhow ambasador mingiste. waxaan doonayaa marka hore inaad noo faaqido aynu dulmarno ood sharaxaad ka bixiso bal jagadan aad hayso iyo maadaama aad tahay safiirka somalilan ee wadanka chinana runtii malaha waxaa la odhan karaa wadanka maraykanka ka horeeya xagga dhaqaalaha iyo xawliga uu ku socdo. marka bal shaqada halkaa lagaaga magacaabay door intee leg bay ka qaadanaysaa horumarka dalka? intaa horta aynu aad sharax naga siiso. bismillahi raxmaan raxiim. aada iyo aad baa umahadsantahay cabdi, adiga iyo bahda tv-ga qaranka dhammaantiinba aada iyo aad baan idiin salaamaya. mahadsantiin fursadan qaaliga ay siiseen. haddii aan usoo noqdo su-aashaada jawaabteeda, runtii wadanka china waa wadan aada u ballaadhan oo waa wadanka maanta dunidan aynu ku nool nahay ugu dad badan sidaad la socoto. runtii waxaa la odhan karaa muddadii u dambeysay dalka china wuxuu ku tallaabsaday ama uu horumarkiisu ku socday xawli aada u weyn. waa dalalka maanta dunidan aynu ku noolnahay ama caalamkan aynu ku noolnahay, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto farsamo, hadday noqoto aqoon, intaba wuxuu ka mid yahay dalalka hogaaminaya. waxaana la yidhaahdaa inta badan hadda waxaa la yidhaha china ayaa ah number one dunida marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo horumarkaba. 10 sano u dambeysay ama dhowr 10 sano ugu dambeeyay wadanka china wuxuu aada ugu dadaalayay in uu tartan la galo dowladihii kale ee markaa xagga dhaqaalaha dunida madaxda ugu ahaa. waxaanu isku dayay gaar ahaan qaaradda africa in uu ku yeesho ama maalgashi badan sameeyo. waxaynu hadda ognahay labada wadan ee dariska ethiopia iyo jabuuti labadaba inay kambaniya aada u fara badan soo degeen oo chinese maalgelin aada iyo aada u fara badan ay ka socoto. marka runtii waxaa la odhan karaa china maanta isagaa hogaaminaya dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka. waxaanu diyaar u yahay oo xiiseynaya qaaradda africa gaar ahaan inuu gashado maalgashi badan oo qaaradda africa saan la socono waa qaarad iska dihin. marka waxaad moodaa wadamadii kale ee dhaqaalaha lahaa inuu kaga dheeraynayo ama uu ku dadaalayo inuu tartan weliba isagoo hogaaminayo ula galo. dhinaca kale wadanka china wuxuu kaga duwan yahay wadamada kale. waa wadanka haddii waxa uu u qabto dowladahan soo koraya wuxuu u qabtaa wax muuqda ay yihiin oo muddo dheer ay munaafacaadsadaan. marka waxaan qabaa china marka dhinac walba laga eego in uu yahay wadan aada iyo aada hadda u dadaalaya, doonayana qaaradda africa inuu xiriir wanaagsan la yeesho. innaga somalilan ahaana waxaynu ku naallaa geeska africa maadaama hadda jabuuti iyo ethiopia buu soo degay. innaguna aynu nahay geeskii africa oo aynu wadadii ugu muhiimsanayd naallo. waxaan qabaa inay tahay inaynu ka faa'iidaysano, inaynu xiriir fiican la yeelano, in aynu horumarka iyo maalgashiga china la diyaar tahay inaynu inaguna qeybteena raadsano oo aynu ka qayb qaadano. waanan qabaa in wax badani iman doonaan oo fiican. ambasador mingiste cabdi maxamed saleebaan, marka china laga hadlayo runtii shirkado fara badan baa wadanka jooga. walow qaar aan aqaano kuwa macdinta ka shaqeeyo. somalilan waxay caan ku tahay dhagax macnadeedka nooca loo yaqaano quartz iyo crystal oo
sida igu maqaalaa warshadoogay u adeegsadaan warshadihii China oo fara batay waxyaabaan muraayadaha iyo laptoobyada iyo qalab fara badan laga sameeyo marka xagga macdanta oo kale maadaama safiirkii China tahay sidee oo macdanteena looga faa'iideyn karaa loo soo saari karaa China baahi weyn ugu qabo marka laga hadlayo horta de waxay ku xiran tahay marba wixii aad kala doonaysaan labada dal wixii aad isdhaafsanaysaan iyo marba halka ganacsigiina uu ku wajahan yahay ama wixii aad doonaysaan in aad maxaa dhahday wax ka wada qabsataan haddii aan usoo noqdo shirkadahan way jiraan anigu ma arag shirkado waaweyn oo China uu leeyahay laakiin waxaa jira kooxo Chinese oo wadanka jooga oo waxyaabo kala duwan oo matalan macdantaas ka mid tahay ay ka shaqeeya ama raadsada laakiin ma jiraan kambaniyo hab dawliya ama hab maxaan idhahdaayay kambaniyo waaweyn oo dalka China leeyahay oo wadankeena hadda jooga insha Allah mustaqbalka way iman doonaan waxyaabo shakhsiyaadkan iyo kooxahan hadda joogaana inta badan waxay arrintoodu ay salka ku haysaa in dad ganacsataa ama dad iyagu muwaadiniin oo kambaniya leh ay soo casuumeen ama ay u yimaadaan laakiin wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin oo aan anigu qabaa in ay maraan habka ugu saxsan ganacsatada iyo dadka ay la joogaan dadka Chinese-ka haddana waxaan kula talin lahaa in ay sida ugu dhaqsaha badan wasaaradda arrimaha dibadda uga soo register gareeyaan dadkaas sababtoo ah dadkan waa dad muwaadiniina wadan bay u dhasheen dawladahoodu waa daba socda dawladahoodu waa rabaa inay ka warhayaan marka haddii cidda ugu horreysa la soo weydiiyaa waxay noqonaysaa wasaaradda arrimaha dibadda haddii mid wax ku gaadhaan halkan laakiin ma noqonayso ninkii ganacsadaha ee keenay ama kooxdii keentay idinla xidhiiri maysa laakiin waxaa lala soo xidhiiriyaa si hab dawladeedkana lala soo xidhiir wasaaraddii arrimaha dibadda marka annaguna waxaanu jecelnahay inay nala soo xidhiidhaan inay nala soo socodsiiyaan inta ay keeneen kambanigaas nooc uu yahay waxa uu doonayo inuu dalka markaa ka soo saaro hadday macdan tahay hadday kalluun tahay hadday warsho tahay marka haddaynu habkaa isugu xidhno oo wasaaradaheena iyo dadkan ganacsatada isku xidhno annaguna markaa waxaa noo fududaanaysaa dawladdii China oo kale haddii mid ka mid ah ama hantidooda wax ku gaadhaan halkan cidda horsi soo weydiinaysa annaga inaanu markaa u sheegno sidaa iyo sidaa ayaa wax u dhaceen marka waa wax aad iyo aad u muhiimsan ganacsatadana waxaan kula talin lahaa oon halkan uga faraya fariintan u marinaya TV-ga inay sida ugu dhaqsaha badan noola soo xidhiidhaan wasaaradda arrimaha dibadda la soo xidhiidhaan ay usoo diiwaan geliyaan kambani waliba inta shakhsi ama inta qof ee joogta ee ajnabiya shirkadda joogta ama magaca kambaniga jooga wuxuu doonaa qabto shaqada uu haya waxay tahay taas waxay inoo fududaynaysaa la socodka innaga hantideena lafteeda ilaa ay fududaynaysaa ambassador marka laga hadlayo maalgashiga wadanka waxaa jira wasaaradda macdintu shirkaday heshiis la gashay walow kooxaad sheegaysay yihiin imka sii moodiyo kale shirkad baa ka howlgasha oo macdinta soo saarta marka maadaama safiirkii Soomaaliland China tahay maxaad kala socotaa shirkadaasi moodi macdinta ka wada wasaaradda macdintuna ay heshiiska la gashay horta magacaabistii madaxweynaha Axmed Maxamuud Silaay waxay 30 Juun bay ahayd markii la magacaabay aniga waxaan hadda magacaabnaa July iyo August hadda dhamaatay labada bilood waxaan ku guda jiray inaan ururiyo xogta ama arrimaha dadka matalan Chinese-ka ee wadanka jooga waxay qabtaan waxa inaga soo gala iyaga itemska ama alaabada laga keeno China inaan ururiyo oo bal horta xog dhaba intaan China tagin xog dhaba halkan aan ka helo marka kadibna aanu bandhigo dawladoodii hadhowto markaan u tago aadhahdo intaasoo qof baa idinka joogta intaasoo shirkadood baa idinka joogta intaasoo waxaasay qabtaan marka xogta caynkaas ee wadanka gudihiisa inaan ururiyo marka hore marka weli waxaan ku guda jiraa ururintii xogtaas wasaaradda macdanta waan tegayaa waan arkay cajiladda laga duubay qolada adiisha magacawday hadda mana ogi heshiiska ay wada galeen wasaaradda macdanta
iyo shirkadaasi. laakiin waxaa jira oo koobi hadda xafiiska aan ku hayaa waxaa la yidhaahdo sharciga maalgashiga matalan somaliland. marka matalan dadkan ajanabiga ah oo kale sharciga in maalgashiga marka waa laga yaaba dee kaa inay raaceen oo kaana way haystaan. marka waan tegi doonaa wasaaradda macdanta, waan tegi doonaa xafiisyada ay soo maraan alaabta China ka timaada si aan u helo xogtooda imisa container baa sanadkii ka yimaada, imisa item baa inooga yimaada ama imisa shay baa ka yimaada, si hadhowto markaa dowladoodii aanu hordhigno uga wada hadalno oo ugu bandhigno waxaas oo dhan baanu naga kiin soo gala. marka hadda wasaaradda macdanta iyo rugta ganacsiga iyo wasaaradahan ku shaqo leh warshadaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waxaasoo dhami waa kuwan hawshooda ku jiraan xogtooda ururinayo. markaan xogtoo dhan helo ayaan markaa sheegi karaa in heshiiskay wada galeen wasaaradda macdanta iyo aad iyo ayaad mahadsantahay ambassador cabdi maxamed saleebaan mingiste. waxaan doonaynaa in badan baa siyaasadda somaliland kusoo dhex jirtay walow mar mucaarid aad ahayd oo afkaarahaaga si xor aad u cabiri jirtay. waxaan doonaynaa bal horumarka waddanka somaliland ka socda gudo iyo dibadba inaad adoo khibradaada adeegsanay bal aad sharaxdo wacyigan aynu marayno. intaana su-aasha gudbin cabdi waxaan jeclay inaan yar ku kaabo. tusaale ahaan waddanka China hadda waxay naga jooga 500 in ka badan 500 oo arday oo reer somaliland wax ku barta, weliba maadooyin aad u fiican barta, dhakhtarka, petroleumka, engineeringka barta. in waxa jooga intaasoo ganacsato oo tiro badan oo ganacsato reer somaliland oo iyaguna kasoo dhoofiyo waxyaabo badan oo kala duwan. marka xiriirka China iyo somaliland wuu jiraa oo hadda wuu jiraa oo intaasoo ganacsato intaasoo arday ayaa degan oo dad aad u badan reer somaliland degan. wuxuun baan bilaabaynaa hadda waxa weeye kii dawliga ahaa habkii dawliga ahaa wakiil isdhaafsiga in la isdhaafsado wakiilo in maxaa dhahdaa labada dowladood ay macaamilaan oo wada hadlaan, in iyaguna ay keensadaan halkan wakiil annaguna halkan keens kaasaa hadda bilaabanaya. xiriirka China inaga noo dhexeeya muddo dheer buu jiray oo waqti dheer buu jiray oo weliba waxaan ku xasuusinayaa madaxweynihii labaad ee somaliland maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu caansanaa ee u doodayay aqoonsigii China xilligii ay aqoonsi raadska ahayd. marka documentics baa la hayaa waxyaabahan hadhowta la tegi doonaan odhan doono aanu tusi doono dowladda China kuwaasaa ka mid ah documentska inaan waqtigaas anagu ay iyagu waqtigii ay aqoonsiga raadinayaan aanu caawinay, annaguna maanta aanu caawino uga baahanay iyo kaalmo uga baahano maadaama yihiin xubin aad u muhiima jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo dowladaha adduunka ugu xooga weyn ama wax la dhageysta yihiin maanta. marka xiriir aad wanaagsan baa jira. haddaan usoo noqdo tan su-aashaadii ahayd wacyiga waddanku marayo, waddanku meel fiican buu marayaa. sida caadiga dowladahan isbedelaa mid waliba meel bay ka qaadaa, meelna way gaarsiisaa. haddaynu dib ugu noqono taariikhda dowladdii maxamed cabdiraxmaan axmed cali meel bay waxbay bilowday, meel bay keentay. dowladdii maxamed xaaji ibraahim meel bay keentay, dowladdii daahriyaale meel bay keentay. tan axmed silaahi maanta uu hogaaminayana meel bay geynaysaa, ta ka dambaysaana meel bay waa jaranjaro socota, waa systemkaa socda la jaan qaadaya horumarka iyo isbedelka iyo wacyiga dunidu maanta ay marayso. marka runtii waxaan odhan karaa meel wanaagsan bay maraysaa oo aad u fiican. inta dhimanna insha allah waxaan ilaahay nagu garab galo, waxaan filayaa inaynu qabsan ka doono. dhibaatooyinkeena haysta waxaa ka mid a ugu weyn ictiraaf la-aantaasaa ka mid a oo marka aad ictiraaf haysato waxaa fududaanaysa inaad dunidii la macaamisho wax badan. waynu macaamilaa maanta dunida, laakiin sidaasi ka weyn oo hab dawliyaho aqoonsi ku dheehan inaad u macaamishaan waxyaabo badan, in baasaboorkaaga shaqeeyo, in lacagtaadi shaqeyso, in maxaa dhahday kambaniyadii waaweynaa ay shaqeeyaan, in insurance loo helo. matalan kambaniyada ugu waaweynee maanta dunida waxa ugu horeeya kugu xidhayan waxa weeye insurance ama caymis. hantidan waddanka aanu gelinayno intaa leeg maxaa caymin insurance damaanada. marka dowladnimadu aqoonsiga waxyaabuu inaga hortaagan yahay kuwaasaa ka mid ah. marka waxaan filayaa insha allah aqoonsigan aynu gaari doono. maantana dalkeenu meel fiican buu marayaa
oo horumar fiican baynu gaadhnay dunida wayna la macaamishaa marka waxaan filayaa halkaas waynu kasii labalaabno ay meel fiican baynu gaadhayna mingisteen waxaad ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda wakiilada ee dhowaan loo magacaabay wadamo kala duwan waxaanad ka mid ahay dood qayb ka ahayd safiirkii imaaraadka loo magacaabay iyo Kenya iyo adna China ahayd siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland bal waqtigan heerka ay marayso ummadayna daawanaysa ma u sharxi kartaa runtii siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland meel fiican bay maraysaa waxaa hogaaminaya wasiir international committee ama bulshada caalamka aqoon badan u leh muddo dheer ka soo shaqaynayay yaqaana sida loola macaamilo caalamka iyo dunida loola macaamilo yaqaana runtiina waxaan odhan karaa wax weyn baa iska bedelay siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha isbedelka muuqda waxaa ka mid ah bishii June madaxweynuhu sodonkeeda wuxuu magacaabay 2 wadan buu magacaabay wakiiladooda Emiraadka iyo China waxay ku tusaysaa marka in ay siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland ay gaadhay wadamo aanay markii hore gaarsiisnayn oo markii ugu horeysay carabta wadamada ugu adag bay ahayd aan maxaaraday ogolayn inaynu wakiil geysano in China saad ogtahay waa wadamada aad iyo aad ugu adag dhinaca siyaasadooda arrimaha dibadda aad bay u yara adadkayd waxaad aragtaa inaynu gaadhnay marka waxaan ku odhan karaa siyaasadda arrimaha dibaddu way socotaa si fiican bay u socotaa wadamo badan oo kale oo aanay maanta gaadhinna waxaanu filaynaa inay dhowaan gaadho marka aad iyo aad bay u fiican tahay hawsha ugu culus hortaalla wasaaradda arrimaha dibadduna waa ictiraaf helista ictiraaf raadinta ictiraafna maaha wax meel yaalla oo lasoo qaadayo laakiin waa inaad ka howlgashaa waa inaad dadkii isbarataan dowladihii isbarataan xidhiidh idin dhex maraa markaa kadib ayaa ictiraafkii iyo imanayaan marka hadda maanta albaabo badan baa la garaacay oo aan hore loo garaacin marka siyaasadda arrimaha dibaddu waxaan u sheegayaa shacabka reer Somaliland meel kasta joogaanba inay meel fiican marayso xagga doorashooyinka Somaliland marka laga hadlayo maadaama Somaliland uu yahay dal dimuqraadi oo habka asxaabta badan dadku madaxda lagu soo doorto muran yaro xagga waqtiga doorashadu dhacayso ka taagnaa waatii go'aan dastuuriga ka gaadhay maxkamadda dastuuriga oo aad ugu sareysa dalka marka maadaama siyaasadda waddanka la socoto dhinaca doorashooyinka iyo go'aanka maxkamadda iyo arrimahaas aad u aragtaa runtii mar kasta oo ay doorashadu soo dhawaato uu bilaabmaa murankan xusbiyada iyo xusbiga talada haya marka iyo xusbiyada mucaaradka horta cidda keliya ee dalkeena sharci u leh sharcigu dastuurku u ogol yahay inay kordhiso muddo kordhin samayso waa guurtida siday maxkamaddu badda caddaysay oo ay u fasirtay sharciga iyaga ayaa dastuurka ku qoran in ay muddo kordhin sameeyaan mucaaradku inta badan waxay ku dhegaan waan arkaya rag badan oo ixtiraamiga mudan oo tviyada ka hadlayay oo markay ka hadlayaan muddo kordhinta waxay yidhaahdaan ma dhicin aafa ma dhicin daadad ma dhicin ilaahay naga haye dagaal ma dhicin bay yidhaahdaan laakiin haddii doorashadu ay dhaafayso maalintii loogu talagalay maalintii u cayinayd haddii ay doorashadu ka gudbayso oo maalinta dib uga dhacayso waxa iskale golaha guurtida sharciga markaas uu cadaynaya maxkamadduna waa tii caddaysay haddii doorashadu ay ku dhacayso waqtigii ay ahayd inay dhacdo oo aanay dhaafaynin sidaan qabo waxaa xaq u leh commissionka marka waxaad moodaysay shaqo ciddii lahayd halkan fadhido in dad badan oo kale ay matalan qabanayeen laakiin qoladii shaqada lahayd aan dee loo tegin marka xusbiyada mucaaradka haddii ina uu muran dhex maray xilligaa doorashooyinka waxaan filayaa hadda alxamdulilah waynu ka gudubnay cidda mar walba ugu dambaysa fasiraada loola tagaana waa maxkamadda markii ugu horeysa loola tegina maaha marka
alxamdulilah rabbilcaalamiin si fiican bay ku dhammaatay qoladii mucaaridka xiiqsanaydna waxaan malaynayaa way iska degeen hadda oo way ogolaadeen guurtooduna dhowr sheer bay ku celcelisay inay yihiin cidda keliya ee xaq u leh muddo kordhinta waxaana fiican inaynan mar dambe ama xilli dambe isku qabsan yaa kordhinta xaq u leh waynaynu ogaanaa shacab iyo xukuumad iyo xusbi iyo cid walba cidda keliya ee xaq u leh muddo kordhintu hadday doorashadu waqtigeedii dhaafto inay tahay guurteeda. ambassador waxaan doonayaa in aragtidaada aad ku cabirto wacyiga waddanka marka laga hadlayo maalmaha waxaa hadaleyntooda ay badneyd haamaha shidaalka oo la doonayo in lagu wareejiyo shirkado muwaadiniina oo maalgelin ku sameeyo horumar ku sameeya arrintaa golaha wakiiladu shalay sida adarkiisa waxay dhahan waanu laalay wasaaradda ganacsiguna waxay tidhi heer la isla gaadhin golahii wakiiladu wax laalaan weli lama gaadhin oo golaha wakiiladu way degdegeen marka arrinta maalgashiga haamaha shidaalka iyo dadkan muwaadiniinta lagu wareejinay sidaad u aragtaa horta arrintaas shalay bay dhacday runtii ma ihi dhinac qoladii hawsha khuseysay ku shaqo lahayd laakiin markaan dhinac kale ka eego weli maan arag anigu qoraal xukuumadda ka soo baxay oo ay leedahay waxaa la wareejinaya haamihii wax qoraal ah ma arag runtii cid mas-uuliyiina oo hadlaysa oo leh waa la wareejinaya haamihii maan arag runta markaan kuu sheego wax xukuumaddu ay u soo gudbisay golaha baarlamaanka oo ay leedahay xeerkaasaanu idiin soo gudbinay ama barnaamijka ama qorshahaasaanu idiin soo gudbinay haamahaanu ku wareejinayna ka dooda ma arag marka mooshinkan mooshin buu ahaa mooshinkana baarlamaanka dhexdiisu ka dhashay waxaanu ka dhashay baan filayaa xan uun wax xanahoo suuqa yaalay waxna waa wax qoraala oo officiala oo xukuumadda ka soo baxa oo de aynu wada arkayno waxna waa iska xan suuqa ka jirtay marka anigu ma arag qoraal la leeyahay ciddaasaa lagu wareejinayaa ma arag cid le annagana lagu wareejinayaa ma arag qoraal meel laba ka soo baxay laamaha dawladda ka soo baxay ma arag mid wasaaradda ganacsiga ka soo baxay oo odhanaya haamihii baan wareejinay marka waxaad moodaa halkaa baarlamaanku inay u baahnaayeen inay dood galaan ay yidhahdaan keena ciddii lagu wareejinay keena qoraaladii lagu wareejinayay xog badan ay urursadaan markaa kadib bay ahayd baan u malaynayaa inay codka qaadaan laakiin dee si kastay waxaan malaynayaa de waa golaheenii sharci dejinta baarlamaanku wixii ka soo baxaana inay sharci yihiin baan filayaa xagga maalgashiga haamaha marka laga hadlayo wasaaradda ganacsigu iyadoo adeegsanaysa qodobo dastuuriya waxa ay runtii shalay soo bandhigtay warbaahinta wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku ay soo bandhigeen in nidaam dastuuri ay tahay in wasaaradda ganacsigu ay qorshayso nidaamiso tallaabo kastoo horumar dalkan ugu jiro marka adigoo xagga maalgashiga ka eegaya maadaama jinana wax badan iskaga keen xidhiin adoo xaggaa ka istaagaya sideed u aragtaa in shirkado muwaadiniina ama ajaanib kuway doonaan ha noqdaan haamihii shidaalka lagu wareejiyo horta wasaaradda weliba horta iyada dee shaqadeeda madax bannaan oo hawlaheeda iyadoo madax bannaan marka anigoo aan faragelinaynin wasaaradda ganacsiga iyo hawlaheeda dhinac haddana wasaaraddu waxay leeyihin xiriir bay wada leeyihiin oo waynu dee waa xukuumad iyo laamaheedii wada shaqayn badan waxaa ka dhexaysa marka dhinacaas marka shirkadi timaado ama shirkadaa wada hadlaysaan horta marka horeysa dee waxaa wada hadlaysaan waxaa eegeysaan danihiina labada dal danihiina labada wasaaradood danihiina labada dad ee meesha degan marka shirkadani maxaa kala faa'iidaysaan baa ka horeysa marka hore maxay iyadu kusoo gelaysaa adna maxaad kaa faa'iidaysaa iyaduna maxay kaa faa'iidaysaa marka haddii markaa faa'iidadaadu ay badan tahay oo adigu aad tahay de waxaa jira agreement heshiisyo la galo oo caalamiya baa jira oo shirkadaha iyo dawladaha iyo laba dawladood baa wada geli kara laba shirkadood baa wada geli kara marka horta shuruucdaasaa la raacaa oo ay cid walba raacaysaa dhinac kale haddaan ka eego
waxaynu u baahannahay maanta in shirkaduhu aynu soo jiidano ee uma baahnin inaynu shirkadaha erino waayo dadkeeni shaqa la-aan baa haysaa dalkeeni waad aragtay kalluunkeenii kalluun waad aragtaa warshad kalluun oo halka ku taalla oo kalluunka soo saartaa ma jirto macdanaheenii oo dhan baa daadsan kalluunkeenii baa daadsan milixdii baynu xoolihii warshadihii hilib waxyaabo badan baynu u baahnay waxaan u baahnay shirkado badan oo ganacsi ah oo kusoo dhiirada wadankan oo maal gashada khayraad aada u fara badan baynu leenahay badiyo berriba xoolihii baddii beerihii wax walba baynu haysanaa macdantii batroolkii sibirkii waxaan u baahnay inaynu dadka soo jiidno oo ay inoo yimaadaan waxaynu u baahannahay dadkeenan dhalinyarada faraha badan ee tahriibaysa ka cabanaysa shaqalaanta inay shaqo ka helaan shirkadahaas waxaynu u baahannahay in kuwan maanta soo baxaya ee hadda iskuullada kasoo baxaya ama dhalinyarada halkan joogta ee hadda shaqala-aantu hayso inay shaqo ka helaan marka anigu mar kasta waxaan aaminsanahay inaynu soo jiidano shirkadaha berito ama bisha dambe haddaan china tago oo intaasoo company ay yimaadaan waxaan jecelahay in la soo dhaweeyo oo maxaan rahdaye loo fududeeyo iyadana laga tallaamayn shuruucdii wadanka shuruucdii caalamiga ahayd iyo intii o dhan ba la tixgelinayo iyo danihii labada dal iyo danihii dalka iyo dadkaba la tixgelinayo in haddana soo dhaweyn la muujiyo ay inagu soo dhiirado haddii company weyn inagu soo dhiirado maalinta dambe waxaa imanaya mid kale ka dambeynaya maalinta dambe laba imanaya marka markasta waxaan aaminsanahay in lasoo dhiirigeliyo oo ee aan la eriyin oo la tusin weji xun iyo riixid aan la tusin soo dhaweyn iyo farxad in la tuso matalan china qof ajnabi ah waxyaabaha matalan wadankaas le calaamadaha ka mid ah qof ajnabi ah erey xun lama odhan karo wadanka dhex jooga wadanka china lama maagi karo lama caayi karo lama dhibaateyn karo lama boobi karo because waxay rumaysan yihiin barwaaqadan iyo hantidan maanta ay haystaan in dad badan oo ajnabi u yimid oo maal gashaday ama u yimid ay keeneen marka inagu waynaynu soo dhaweynaa macnaheeduna maaha inaynu dhaqankeenna iyo diinteenna iyo shuruucdeenna meel kaga dhacno intaba iyaguna wayna ilaaliyaan inagoo labada dhinac eegayna waynaynu soo dhaweynaa haddana markasta marka waxaan kaga baxayaa waynaynu soo dhaweynaa maalgashiga waxaynu ka hadlaynaa habka asxaabta badan iyo xisbiyada qaranka somalilan in badan baynu soo wadnay dadaalkan madaxweyneyaal baynu kusoo dooranay uu u dambeeyey madaxweynaha haatan talada haya axmed maxamed ziiraanyo nidaamkii wuu socdaa waxaan doonayaa adoo aragtidaada siyaasigaa ku cabiraya habka asxaabta badan iyo mucaarad iyo muxaafid sidan imika wax u socdaan ma degdeg baa inagu jira mise nidaamkii dimuqraadiga ee loogu talagalay xisbiyada ayaynu weli ku taaganahay waa su-aal fiican waxaan u malaynayaa hadda intaba goobjoog banaha 2 jeer baa xusbiyada la furay 2 jeer ee xusbiyada la furay mar walba waxa ka soo baxay 3 xusbi because dastuurka odhanaya habka aynu ku dhaqmayna waa habka xusbiyada badan haddana farqada ka dambeysa odhanaysa xusbiyada kama badan karaan 3 marka 2 jeer baa la furay markii ugu horreysay waynu xusuusanaa mooy 9 8 xusbi meelahaas ay ahayn 3 baa ka soo baxay wixii kulmiye iyo udub bay ahaayeen 2010 markii haddana la furay waxaa soo baxay 3 oo udub baa meesha ka baxday waxaa soo baxay kulmiye iyo cid iyo wadani in dastuurkeeni saas uu sheegaya 3 xusbi ay soo baxaan dhibta keliya aan u malaynayo inay haysato dimuqraadiyadeena waxaan kusoo koobi karaa dhowr qodob qodobka ugu horreeya wax weeye waxaad moodaa inaanay korin xusbiyadii xusbigu waynu koraa oo uu horumar koritaan xusbigu waynu sameeyaa dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinac walba waynu horumar ka sameeyaa oo xusbigani uu noqdaa xusbi hore u socday laakiin waynaanu halkiisii uun taagnaan ama mararka qaarkoodba dee aanu saaxadda ka bixin xusbi intaa jiray aanu saaxadda markiiba ka bixin oo si yaroo fudud uga bixin taas waa mid koritaanadii xusbiyadu waxaad moodaa weli waxbaa inaga siya ta kale wax weeye
waxaynu qaadanay hab dimuqraadiya oo doorashooyina habka one man one vote ama qof walba codkiisa inuu bixiyo waxaynu dooranaynaa baarlamaan waxaynu dooranaynaa tii madaxweynaha aynu qabanaynaa doorashadii madaxweynaha waxaynu qabanaynaa tii deegaanka 3 doorasho oo isku xiga ayaa meeshii jira inagu ma lihin awoodeedii dhaqaale aynu 3 doorasho oo isxiga marba mid qaban lahayn anigu dadka taagan baan ahay mar kasta in 3daba mar loo wada qabto sababtoo ah warqadahun baa 3 mid noqonayo kala nooc ah marka qofku 3 warqadood intuu qaato ayuunba mid walba sanduuqii loogu talagalay ama meesha loogu talagalay tii deegaanka qofku doonayay buu dooranayaa madaxweynaha ku doonayay buu dooranayaa baarlamaankana ku doonayay buu dooranayaa marka sabab aynu 5 sanaba mar u gallo buuq iyo qaylo ma jirto mar qurayna dhaafi lahayd mar quraanay marka aynu xanuunkeeda iyo daalkeeda iyo dhibteedana ka nasan lahayd marka doorashooyinkaas soo noqonaya ee faraha badan ee mar walba muddo dhaafaya iyaguna waxay keeneen dhibtooda haddii xitaa ay 3 mar wada qabsoomi waayaan baarlamaanka deegaanka la israacin karaa madaxweynuhu gooni buu ka noqon karaa oo labada la israacin karaa qodobka kale jira waxa weeye dimuqraadiyaddu waxaynu u fahanay in la caytamo in la qayliyo in la buuqo waddanka lagaga gariiriyo mararka qaarkood anigu mucaarada soo maray qolooyinka wariyaashu waxay ku yidhaahdeen weli adoo TV fadhiyo qof caayaya maanaan arag way waayeen way raadiyeen marar badan bay barnaamijyada sameynayeen yidhaahdeen waanu soo raadinay may helin laakiin waxa weeye anoo xusbi wax ka sheegaya waa la hayaa oo dee way jirta xusbi waxaan ka sheegi jiray laakiin weligii qof hebel ma odhan waxaad arkaysaa waxaana jira meelaha qaarkood dada qaarkood markaad meelaha qaarkood gaadho waxyaabo kaa madnuuca baa jira oo aan sharaftaada iyo karaam waxaad arkaysaa rag waaweyn oo cirale garhka iyo madaxba caddaaday oo habeen oo dhan TV-ga la fadhiya cay iyo afligaado dimuqraadiyaddu sidaa maaha dimuqraadiyaddu waxa weeye mucaaradadu waxa weeye mucaaradkan ujeeda waxa weeye wax qofkaas wixii uu qabanayay ama xisbiga ama dawladda markaa jirta wixii qabanaysay inaad keento wax ka wanaagsan oo aad qabanayso laakiin maaha inaad habeen walba hebel TV-ga usoo fadhiisato maaha inaad habeen walba reer hebel TV-ga usoo fadhiisato maaha inaad habeen walba magaalo hebel usoo fadhiisato TV-ga maaha dhinaca kale saxaafadii waxay moodaa inay xadkii ka baxday iyada lafteedu oo xorriyaddii ay ka baxday xadkii loogu talagalay waxaad arkaysaa TV soo daynaya ama TV laba haddaanu nahay beesha reer hebel beesha reer qura shir ballaaran aanu maanta yeelanay waxaanu ka soo horjeednaa go-aanka ay kala saxeexdeen Turkiga iyo Mareykanku ama Somaliland iyo Mareykanku waa beel geed hoostii bay fadhiyaan waxay ka soo horjeedaan heshiiska Mareykanka iyo Somaliland kala saxeexdeen salaadiinta halkaa fadhida shaqadoodu waxa weeye ama dadka halkaa fadhiya madax dhaqameedka waxa weeye beeshooda iyo beelaha kale la dariska inay magta u kala qaadaan inay wixii dhex yaala isu xaadhaan oo nabad ka dhex dhaliyaan magaha inay u kala qaadaan laakiin maaha hawshoodu inay xiriirka Mareykanka iyo Somaliland ganay ka soo saaraan baaq cambaarayna ama diidma maaha marka waxaad arkaysaa maalin walba inaynu TV-ga isu fadhino oo matalan aynu dawladaha dariska qolooyin inooga yimi waxay yidhahdaan markaanu TV-ga daawano xusnaana wallahi nimankii meesha ku kala dhaqaaqay haddana markay halkan yimaadaan iyo qolooyinka qurbajoogga iyo waxay dhahaan afar saac wadnahan farta ku hayno xusnaa wallahi baa meesha lagu kala dhaqaaqay Somaliland waxa TV-ga markaan daawano laakiin markay halkan yimaadaan cid hadal haysa waa wixii ambassador arrinta xorriyadda saxaafaddu runtii marka laga hadlayo waxaana dad badan yidhaahdaan waxyaabaha Somaliland ay ku horumartay marka wadamada inagu xeeran iyo kuwa kale caalamka waad aragto heerka aan xorriyadda ka gaarnay laakiin in basar lagu daraa waa mid munaasaba waxaan doonayaa dhalinyarada ka dhawaajisay oo waddanka China degan oo laga yaabo inay imika ku daawanayaan oo runtii kuwa aad ku xisaabtamayso ee halkaana safiirad uga noqonayso waddanka horumarkiisina qayb muhiim ka qaadanayo gabagabadii barnaamijkeena ambassador marina waxaan doonayaa fariin u dirto dad fara badan oo daafaha dunyada ka daawanaya dadka Chinese ka waddanka gudihiisa ku dhaqan ama shirkadaha noqdaan walow aan arkay xitaa kuwa caafimaad ka shaqeeyo nidaamkan caafimaadka acupuncture la yiraahdo runtii niman China waddanka hawlgala waadigi fariin u diray wasaaradda inay soo maraan arrimaha dibadda oo shaqadaadii ay tahay safiirnimo marka dad fara badan oo ku daanayo gabagabadii fariinta shacabka reer Soomaaliland daafaha dunyada dalka u diraysa maxay tahay
ardayda iyo ganacsatada China degan runtii aad baan u salaamayaa qaar badan oo kamid ah oo arday badan oo fasaxada halka ku joogta way yimaadeen way hambaliyeen way salaameen way soo salaameen wada shaqeynna way naga dhaxaysaa oo xidhiidh uu noo bilaabmay ganacsatada China joogta wax ka keenta ama xafiisyada ku leh rag badan oo kamid ah wax la dhexmaray xidhiidh way la soo xidhiidheen rag badan oo qaali ah ayaa jooga halka oo runtii aad iyo aad hawsha dhinacooda kaga jira ina ballan qaaday inta aan soo gaarin China inay hawsha dhinacooda ka wadayaan qaarkood xitaa ay yidhaahdeen kaalay oo annaga wax walba xafiiskii iyo meel walba ku geynayna kaalay marka horta raggaana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ardayda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa in badan oo kamid ardayda fasaxbay hadda waddanka ugu joogaan wasaaradda aan isku aragnay ay ugu yimaadeen labada qolob waxaan kula dardaarmayaa in ay laban dadaalkooda in ay isgarab taagaan sidii aan uga madho dhalin lahayn xidhiidhka Somaliland iyo China waxbarashadoodana ay ku dadaalaan oo sidii dalkan markay wax soo bartaan iyo aqoonta ay soo bartaan dalkooda iyo dadkoodaba ay ugu soo celin lahaayeen in qolo walbana dhib baa haysato waan ogahay oo matalan dhibaatooyin u gaara way jiraan ganacsatada dhibaatooyin u gaara ardayda way jiraan oo halkan oo kale wakiil kuma lihin China kuma laha wakiil marka fiisaha inta ay u safrayaan oo kale markay waddanka qaadanayaan China ay ku noqonayaan wadga dareemi kartaa inay u dulqaataan dhibtaas waxyaabaha ugu horeeya aan ka shaqayn doonana waxaa kamid ah in bal waxaa dhibta hadda haysata sidii loo fududayn lahaa loogu fududayn lahaa hadday noqoto fiisaha hadday noqoto ganacsatadan alaabta faraha badan ka keenta oo maanta dee magaaladeena waddanka wax yaala inta badan China ka yimaadaan marka iyaga laftoodu dhibaato u gaara baa jira marka waan ku dadaalaynaa sidii wasaarad ahaan iyo wakiil ahaanba iyo xukuumad ahaan baan uga qayb qaadan lahayn ula xalin lahayn waanu hawsheedii baa lagu jira xidhiidhaa socda hadda dhaqdhaqaaq baa bilaabmay marka wax ugu badan ee la xalinaya waa dhibta ardayda iyo ganacsatada joogta haysata sidii hawlahoodan ugu fudud lahayn in waxa kaloo iyaduna jirta dee sidii aan u soo jeedin lahayn in kambaniyada ama tijaarta ama dawladda China sidii ay waddankan xumaal gashan lahaayeen ama ay horumarka waddankan uga qayb qaadan lahaayeen shacabka reer Somalilandna fariintan halkan uga diraya runtii waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda hawlaad aad iyo aad u wanaagsan bay wadaa dalka gudihiisa inta gudaha joogtaa inay nabadda ilaaliso inta dibadda joogtaana inay wixii waddankooda ay soo tari karaan ay soo taraan waxyaabahan hadalladan iyo maxaa raadayay waxyaabahan TV-ga ka daawadaanna waxaan u sheegayaa marka ay yimaadaan waddanka inaanay arki doonin oo wax jira maaha waa siyaasiyiin ka muranta TV-ga laakiin sida qolooyin badan oo la soo xiriir ay yidhaahdeen TV-yada waxaanu ka daawanaa waxyaabo badan oo aan dee welwelna geliya qoladiina saxaafadan waxaan lahaa in barnaamijyadii la edit gareeyo oo wax kasta oo ummadda ama dadka ina daawanaya wax yeelayn kara ama welwel gelin kara in laga ilaaliyo oo maxaa raadayay lagu dadaalo sidii aan waxaas dadka u gaari lahayn runtiina shacabka reer Somaliland gaar ahaan shacabka Somaliland ee degan waddanka China aad iyo aad baan u salaamayaa asxaabteeda intii daafahatooda joogta aad iyo aad baan u salaamayaa TV-ga qaranka aad baan u salaamayaa aad iyo ayaad u mahadsantahay kaasi waxa uu safiirka Somaliland u fadhiya waddanka China Cabdi Maxamed Saleebaan oo migista ku magac dheer TV qaranka waxa uu bulshada u ballan qaaday in safiirada Somaliland iyo wakiilada ee wadamada adduunka ugu magacaaban in bal afkaartooda iyo aaraadooda iyo aragtidooda horumarka aanu halkan ku casuuno waxaanu safiiro kale aanu halkan keeni doonaa runtii waxaa Somaliland u sharafay in wadamo fara badan ay qadiyadeedii ka dhaadhicinayso sida ambassadorku uu sharaxay wadamada Carabta oo kale aad baan kaaga mahadnaqaynaa sida waqtiga qaadan
barnaamijkan waxaa igala qayb qaatay injineer ugaas axmed maxamed cabdiraxmaan ugaas cabdi cumar jibriil oo salsal ku magacdhay cabdi ildab iyo dhalinyaro fara badan oo runtii qarankan daacad waa gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaa kaloo halkan mahadnaqayaa siyaasadda wadankan iyo wasaaradda warfaafinta ay ku hagayaan wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdilaahi maxamed daahir okuse iyo wasiir ku-xigeenka iyo maarayaha t v qaranka iyo dhammaan mas-uuliyiintii madaxda waaxyaha kala duwan oo wasaaraddii warfaafinta imika ay u muuqato muraayad wanaag iyo horumarka wadanka laga daawado barnaamijka intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa kulamo kale oo xiiso badan oo horumarka wadanka aynu ku faaqidno ayaynu ku kulmi doonaa waa anigoo cabdi almisa oo idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu